مسجkan waxay ku socotaa qof walba u malay in kartooniska Soomaadka ah ama filimada animationka ah guud ahaan magac walba u taqaantiin qaas ahaan animiska wax isku wada mid ah oo carruurta loogu talagalay inay tahay iyo ogolaada saaxiibayaal marka inaan idhaho jaahilnimo anigu jirto بعد تيك توك waxaa ku lahaa akoonkaas oo luqadaha dhan oo daafaha isbardhiga sida Carabta, Ingiriiska iyo Jabaaniiska iyo sida Soomaaliga oo ana taasoo geliyo fiidiyaasha aan soo dhigo fiidiyoo walba marka galo akoontaadka akhriyo badanaa waxa u badan ajaanib, Carab, Ingiriis iyo luqadooyinka dunida dhan ka jira laakiin Soomaalideena waxa arkay in animeyada ay aqoonin baqaar xataa ay soo qorayaan waxaan wuxuu yahay kartoonka soo dhigayo ma yaqaanaan ba animigu wuxuu yahay jaahilnimada wadankeena ku jirta daraadeeda oo Soomaalideena dhibkaas haysto waxaan rabaa inaa كسارو أي جاهلين مدرس كبحان إنمي عالم كأنا لك داودا ير إيوين بعالم كأنا كداودان عرب إنجليز طلياني جرمن روش وخذوا بقار شيكتو عالم كوي داودان لكن سومالي دين ويكويرين دتك يقانو ودد أو حق سوكر مودما سوكرا أو البحثن لكن سومالي دين بدنا ويكويرين دتك يقانو سيا أبرنا إنمي وحويا وما حي إنمي أسر كيس هو أنيميشن أو صارت استوديو كتار اليابان أسر كيس هو بواق تسلو يقانو مانجا kuwa buugta qoro waxa loo yaqaan mangaka artist kuwa animation ka sameeyay waxa loo yaqaan animator yani kuwa mangaka loo yaqaan buugta qoro manga waxay u geeyaan kuwa animator ka oo shirkadooyinka stuudiyaha ka shaqeeya kuwaas ayaa qaada badala ay ka dhiga anime stuudiyada anime sameeya waxa kamid ah Wit Studio, Kyoto Animation, Footable iyo shirkadda caanka ah ee Maba si aad dadkaas uga mid noqon waxa u baahanaa inaan qolaasayna hal anime halkaas anime oo ra'yigeena oo bedeli karo anime ku qasba film kasto tixnaa hoos geeyay oo nartama filimada caanka ah sida Game of Thrones, Breaking Bad iyo filimada lamid ah انميغاس waxaa loo yaqaanaa Attack on Titan Soomaaligiisna waxaa loo yaqaanaa weerarkii Titaniska Carabiiguna waa Hujuum al-Camaaliqa waa anime daafaha oo dhan adduunka qisadiisa soo jiiteen oo cajiib la noqotay qoraaga qisadan qoraysidoo ku qoray qoraaga mangahan qoray waxaa loo yaqaanaa Hajime Isayama ninkii Mr Genius loo baxshay kii mucjisiisii la yaabay oo qisadii cajiibka badneed alifay يوتيوبرka caanka ayaa uu falay ayaa wax lagu weydiiyay qisada animiga wuxuuna yiri Attack on Titan شو رايك فيه اقوى انمي شاهدته في حياتي سلم علي sida filimka cajiibka ayaa ka hadlaysa dad ku jir 3 darbi muddo laga joogo 100 sano dadkaas oo ayaga dunida ugu dambeeyay tiradooduna ay tahay 1 milyan iyo 200 xasab bay aadanuhu cadadkan oo yar inuu ka soo haro maxayna tahay sababta darbiga ugu wareegsan yahay su'aalahaas oo dhan waxa fahmi doona markii khulaasada aad daawano khulaasada animiga wuxuu ka koobnaa doona 88 xalaqo sida caadiyan xalaqada walaad 4 daqiiqo haddii 4 daqiiqo waxa ku khulaasay doona 5 daqiiqo camal insha Allah wixii dhiirigelin waa dhankiina like iyo share iyo subscribe kana saaxiibayaal lagu dadaala أنا waxay u ballan insha Allah qolaasada inimiga in si nadiif u dhameysano insha Allah 8 xalaqo si nadiif u dhameysano insha Allah hadana warkayga aan ugu daalnay xalqadeena aad daawasho wacan qisadeena waxay ku bilaabanaa cunug yar oo riixun ku yaro hayriidan hamarka soo naxay asigoo oynayo cunugaasna waa atoorheena Eren Yeager iyo saaxiibadiisa Mikasa oo sida walaashiisa oo kale walaashiisa ma ahay iyadoo yar hooyada aabaheeda geeriyooday hadana guriga isla nool yihiin Eren iyo Mikasa nool caadi waxay iska nool yihiin magaalo darbi ku wada wareegsan magaaladan waxaa loo yaqaan Shiganshina darbigan dhererkiisa gaaraya 50 mitir waxa uu wada wareegsan si uu ugu difaaco wuxuu loo yaqaan Titaniska aadanaha darbigan waxay ku dhex jiraan muddo laga joogo 100 sano nabadoodana waxay ku jirtaa inay ku nabad qabaan darbigan gudihiisa laakiinse hal koox awood u leh inay darbiga dibadiisa u baxaan si ay xog badan u helaan kooxdaas waxaa loo yaqaanaa kooxda sahaaminta hadafka kooxdan waa in banaanka baaris badan ku sameeyaan si ay xog badan u helaan wuxuushta Titaniska laakiinse waxaa jirta aalado u ogolaanaysa inay si fudud u dili karaan wuxuushta Titaniska aaladaas waxaa loo yaqaanaa ODM gear waa aalad ay ku isticmaalaan gaas sida gawaarida oo kale yacni batomada gacmaha ku jira taabanaya xirigoo soo deyna waa ku duule gaaska kor ku sii qaadaya markaas waa aalad ayaga soo saarteen oo si xeeladaysan u isticmaalaan si ay ugu dilaan Titaniska hadafkooda ugu weyn waa in maalin ay ku guuleystaan bahaladan Titaniska muhiimadeena hadda soo laabanay Eren iyo Mikasa waxay soo aruurinayaan qoryaha dabka lagu shito ayaga guriga u laaban rabo waxay maqleen gambaleelka iyada loo furo kooxda sahaaminta oo ay ka soo laabtay baarista banaanka ay ku hayeen Eren aad ugu faraxsan markuu arko kooxda sahaaminta laakiinse dhibaato zaa'id ah ka muuqato kuwa badan dhaawac daran soo gaaray kuwa xubnahooda gacmahooda ka maqan ciidankooda nus dhan way dhinteen hooyo cunugeeda ka tirsan kooxda sahaamirta waxay leedahay cunugeyga uma jeediyay ee halka ka baxay waxa lagu leeyahay cunugaada gacantaan ka hena waa ku badbaadi weyne hooyada ooyin inay jabsato waxay dhahay si qiirad leh waxa igu filan in wiilkayga geesnimo ku dhinta asigoo difaacay aadanaha oo dhan Allah hooyo iga dheh kabtanka tuskashada wuxuu dhahay maya anaa ka sababa inuu dhinto anaa difaaci waa ciidankayga waxaan u waxay ku dhaceen qaladkayga
Eren wuu aamin la'ay wuxuu indhihiisa ku arkayo. Eren naftirkiisa wuxuu rabaa inuu ku biiro maalin maalmaha ka mid ah kooxda saaminta si uu u ogaado banaanka waxa ka jira oo uu xabsigan ka baxo. Eren riyada oo leeyahay waa maalin inay ka xurumaan noloshan cawaanimada xabsiga la iskaga jirayo. haddii aad soo laaban Eren iyo Mikasa guriga oo soo laabteen, Mikasa Eren ka walwalaysa waxay sheegtay in Eren uu rabo inuu ku biiro kooxda saaminta. hooyadii Eren ee loo yaqaan Carla waxay ku tiri mar dambe hadda waxaas ku fikirta iska jir. laakiin saabihiisa Grisha Yeager wuxuu weydiiyay sababta banaanka u rugtid maxay tahay. Eren ayaa ugu jawaabay inuu rabo banaanka wax ka jir waxay tahay inuu ogaado. anagu darbiyan 100 sano ku jirna ilaa hadda dibadiis wax naga jira ma ogna. anagu waa cunaa waa cabnaa laakiin saaduuku wax ka jira kama warhayno. nolosheeda cawaanimada inaa ku dhamaysto uma bahani. aabiis Grish inoo la yaabo wuxuu ku leeyahay sida dhowr markaa qarin jira ku tusaa oo ah qol guriga hoostiis ku dhex yaalo. Eren aad ugu farxay wuxuu rabay qolkaas dhowr mar inuu galo. qolkaas oo aabiis shaqooyinka dhakhtarnimadiisa ku qabto. markaas aabiis oo iska baxay shaqadiisa iska aadaa. Eren oo la sheekaysanaya saaxiibkiis Armin oo ka wada sheekaysanayaan darbiga maalin inuu burburi doono. hadalka ayagoo u socda ayaa hal mar biriiq xoog badan oo dhulka gariirisa darbiga dibadiisa ku soo dhacay. dadka dhan waxay u baxeen biriiqdaas waxay tahay inay soo fiiriyaan. Eren iyo Armin xataa way ka daba baxeen laakiin hadda indhoodu waxay ku arkayaan waxay hadda ku hadlayeen. Armin xataa wuu yaabayaa wuxuu taagan yahay sida ku dhacday darbigan waa 160 feet waa 50 mitir laakiin taas hadda ma taagno teetanka dhulkiisa 50 mitir kor u dhaafaa. qof walba oo u jeeda musiibada soo socto. hal mar teetanka kuwa indhoos kala jiiday oo albaabka luutiisa weyn ku dhuftay wuuna jabiyay albaabka. teetanka weyn wuxuu albaabka u furay inta iska yar u soo gudbaan gudaha magaalada Shigaashina si ay cunaan dadka gudaha ku jira. dadka dhan kala carra qof walba naftiisa u baxsanaya ilaa ay hal qof ay ka hayeen qofkaasna waa Eren. Eren naftiisa wuxuu ku leeyahay asigoo joogsan gurigeyga dhinaca albaabka ayuu jiraa ama hooyo waxay ku dhaceen waa inuu soo fiiriyaa cabsi baa ay hayso. markaas Eren iyo Mikasa israacayaan waxay u leexayaan dhinaca gurigooda. guriga markay u leexdaan waxay arkayaan naxtintii u weyneed. waxay arkeen gurigooda dhagax weyn ku kor dhacay iyo hooyadoo dhagax weyn ku kor dumay. Eren wuxuu isku dayaa qoryaha inuu ka kor qaado hooyadiis laakiin ma awoodo. hooyadiis Carla waxay leedahay meesha iskaga carra. ani meesha kama baxsan karin lugahayga way burburay ee meesha iskaga taga. haddii aad soo baxaata nima raaci karin lugahayga way naafooween. ayagoo hama filan ayaa tayta 15 mitir dhinaca u soo leexday. bis way u dhamaatay. Eren iyo Mikasa wala cunaa deesaan ku socdaan. teetanka waxay ka dib u soo dhawaahooyaa. Eren wali wuxuu ku adkeysanayaa hooyadiis inuu badbaadiyo. hooyadana waxay taagantaa waa ku baryaa meesha iskaga tag. markaas waxa uu maanaa nin kamid ah ciidamada darbiga ilaaliya oo loo yaqaan Hannes. Hanneska wuxuu taagan niidiina qar oo sheegay saddexdiina anaa ni badbaadinayay teetankan anaa dilayay. ituu geesnimo iska raadiyo ordo hal mar miis ku dhagaa. cabsi leh maal maratan aw ninka geesiga ahaa. Hannes markaas seeftiis inuu cishto kala firay oo soo laabto Mikasa Eren ma ka wada. noocaas ma ahayd balaayo ban iska dhigtay. Eren iyo Mikasa ma ka wada ay hooyada Eren ku mahadiyeyso. Eren markaas tii ugu xumeed noloshiisa indhihiisa saara. teetanka hooyada Eren la soo baxa. Eren qeylada ka baxay dhagahaaga xataa uma adkeysan karaan. waa tii ugu xumeed noloshiisa inta ka dhiman uusan hilmaami doonin Eren. Eren indhihiisa wuxuu saara hooyadiisa hortiisa lagu cunaayo. shoogo ka qaada noloshiisa inta ka dhiman xataa miiloobi karo. magaalada Shigaashina saas ayay ugu dhamaatay. khalaasada magaalada Shigaashina aad u sii ziyaadaysa iyo cabsido aadanaha ku sii ziyaaday. Eren oo qaatay go'aankii ugu weynaa noloshiisa. xalaqada soo socota burburkii darbigii weynaa ee Maria.